Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Liibaan iyo ladnaan daawadayaal ama dhegaystayaal meel kastoo aad kaga sugan tihiin dunida, waa Shubaal Media oo halkan idinka soo gudbinaya warbixin ku saabsan dalka Gambia. Gambia waa dalka dacwadda ka gudbiyay Myanmar oo u gudbiyay maxkamadda ICJ. Gambia waxa uu dhacaa galbeedka Afrika, waa dal aad u yar oo ay ku nool yihiin dad muslimiin ah, waxaana uu deris ama xuduud la leeyahay waddanka Senegal. Waxa uu ku dheerarsan badda loo yaqaano Atlantic Ocean. Gambia waa dal yar, dadka tiradiisuna waa in ka yar 3 milyan, boqolkiiba 95 dadku waa muslimiin sunni ah. Gambia dhaqaale ahaan waxa uu ku tiirsan yahay kalluumaysiga iyo dhinaca beeraha. Gambia oo ah dal aad u yar waxaa gumaysan jiray boqortooyada Ingiriiska. Gambia waxa uu xorriyadiisa qaatay 1970 oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Madaxweynihii ugu horreeyay ee waddankaasi u yeesho waa madaxweyne Dawada Kairaba Jawara oo ahaa 1965 ilaa 70 ra'iisul wasaare ku-meel gaar ah oo uu dalkaasi u magacaabay dowladda boqortooyada Ingiriiska. waxa uu noqday Jawara madaxweynihii ugu horreeyay ee uu yeesho dalka Gambia 1970 isaga oo hogaaminayay muddo aad u dheer. Dalka Gambia waa dal aad u yar, dadkiisuna tiro yar yihiin, dhaqaalihiisuna aan aad u badnayn, hase ahaatee dhaqaale ahaan ku tiirsan dhinaca badda kalluumaysiga. Gambia waxaa dega qabaa'ilo fara badan, waxa ugu waaweyn qabaa'iladaasi oo ay u kala baxaan kuwooda waaweyn Maadinka, Wolof iyo Vula. Gambia waxaa laga hadlaa dhowr luuqadood, waxaa lambar 1 kaga jira oo international ah luuqadda Ingiriiska. Gambia waxaa ku yaala masaajida aad u badan oo uu dhisay intii uu xukunka hayay Cornel Yahya Jammeh oo xilka kala wareegay inqilaab aan ku daadan dhiig 1994 ilaa 1996 uu dalkaasi ku maamulayay xukun military, isaga oo markii dambe doorasho dalkaasi loo dareeray ku guuleystay 1996. waxa uu dalka isaguna maamulayay muddo aad u dheer. Madaxweyne Dawada Kairaba Jawara oo 1970 noqday madaxweynaha dalkaasi, waxa uu dalka xukumayay muddo 24 sano ah 1970 ilaa 1994. Cornel Yahya Jammeh laftiisa oo xukunka la wareegay xilligaasi ayaa waxa uu dalka maamulayay ilaa 2016. Gambia waa waddan aad u yar, badka uu dhulkiisu yahayna aad ugu yaryahay. Koonfur, waqooyi iyo bari waxaa ka xiga oo xuduud u kala leeyahay waddanka Senegal. Gambia dadkiisu waa dad aad u kala dhaqano duwan leh, oo kala jaad ah, kala luuqad ah. qabiil walbana waxa uu isticmaalaa luuqadiisa, waxaana isugu yimaadaan oo isku afkartaan luuqadda Ingiriiska. waxaa lagaga hadlaa 10 luuqadood, waxaana ugu horeeya 5 luuqadood oo uu ugu weyn yahay Ingiriiska, waxaana ku xiga 4 kale oo kala ah Wolof, Serer, Bular iyo Jola. sidaan idiin sheegay, dalku waa dal sunni ah oo dadka sunniga ah ee muslimka ay aad ugu badan yihiin, boqolkiiba 96 waa muslimiin sunni ah, boqolkiiba 1 wax ka yar ayaa ah Kiristan. dalku waxaa lagu maamulaa shareecada Islaamka oo ah calanka waddanka Gambia waa calan 3 kalar isugu jira, guduud, buluug iyo cagaar ayuu ka kooban yahay calanka dalkaasi oo ah astaanta dalka uu leeyahay. sida idiin muuqata waa calanka Gambia oo midabada kala duwan. sidaan hore idinku soo sheegnay, madaxweyne ugu horreeyay dalkaasi Gambia Dawada Kairaba Jawara waxa uu 2019 bishii tobnaad uu ku geeriyooday dalka Gambia gudaheeda isaga oo jira 95 sano.
ومدحوينه معمولي دلكاسي مدة 24 سنوات 1970 إلى 1994 مدحوينه مدة ديرا أيو أها إسو معمولي dalkaasi Gambia intii aanu xukunka Afgambi aandii ku daadan kula wareegay Korneel Yaxye Jaamac oo isna maamulayay ilaa 1996 ilaa 2016 kadib doorasho halkaa ka dhacday oo laga adkaaday oo ku guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee magaciisa la yiraahdo ama loo soo gaabiyay UDP oo uu hogaaminayay آدم بورو وأحد مدحوينها دلكاسي هيا كنا قوليستي إنو حكمك كنا وريق الدور حرة يدو لغا أتكاضي مدحوينه دلكاسي كورنيل يحيى جامع المدد دير سوف كوني يلا